quraanku aad buu uga digay ilaahayna uga dardaarmay xoolahooda agoonta inaan lagu xadgudbin carabta dhaqankoodiina wuxuu ahaa agoonta xoolaha agoonta inay iska cunaan wataakuluna turaatha akla lamma sidaa daraadeed waxa laga bixin karaa wixii iyaga dan u ah sida masruufkooda iyo waxbarashadooda iyo baahiyahooda iyo xoolahooda laga bixin karaa quraankana ilaahay wuxuu ku xusay qofkii maalkooda gacanta ku haya ugu shaqeynaya haduu waxaysto qani yahay inaan waxba moodin haduu faqiir yahay baahan yahayna wax aan dhibaynin inuu wax ka cuno man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf macruufkaas wuxuu noqonayaa dadka loo diri lahaa ee mushaar ka qaadan lahaa inaan isagu ka badsan sadaqa markaa ma jirto wax sadaqo laga bixinaya ma jiro cidda wax ka cunaysaana waa cid iyaga wax ku taraysa oo inta ay ka cunayso iyo inta uu qabanayso isku bedelanaysa waxaan ka digi lahaa waxa inuu naqaano qubanaha waqti intoo la soo qaado qofkii la dilay agoontii kala badh laga goosanayo ee tolku cunayo hada suxtu waa xaraam agoon yar oo aan waxba bixin karaynin ayaa odayaashii iyo ehelkii iyo tolkii kala badh qaadanaya taa waa inaynu iska dayno inuu ka fogaano wuxuuna ila mid xoolay aabahood uga dhintay halka yaalay oo aynu badh qaadanay dad badan oo wax ku dhaceen caruurtoodana waa meelahay wax ka soo gaadheen wallahu a'lam